muudka moodaa inaad ka baxsan tahay mood waa ku jira idinku waa orsha aad buu u maasan yahay abwaankii weynaa sameeyey heesaha Puntland abwaan Soomaalida dhexdeeda qaali ku ah abwaan orsha aad buu maasan yahay khalaf yara soo qabo inkastoo aan jeclaan lahaa inaan mowduucan ka baxno mowduucyo kale aan aadno khalaf yara haddii uu ku jiro soo qabo madaxweyne Elman qofka ugu dambeeya aan ka dhignay khalafow soo dhawow waayahay khalafow soo dhawow inaad hadalka qaado sida caadiga waayahay horta dhammaantiin waan islaamaya ilma aryaal afhayeenka guud ee waxa weeye Jubbaland iyo Puntland iyo maxaa la oran jiray meesha kala xamar iyo waxa weeye boqorka beelaha daarood dhalinyarada gaar ahaan Captain Ayub Lander waayahay Sultan Haliyey ugaas gudubka weyn afhayeenka Axmed Falcade aad iyo aad agaasimaha Shibane RRR Lander intiina warta waan islaamaya ilma aryaal si guud iyo si gaar ahaan aan islaamaya horta waxa weeye maanta waa maalin weyn weeye waa celebration day baa lagu jiraa degdeg garacad oo xariga laga jaray shalay baa loo dabaaldegaya horta waxaan leenahay ummadda reer Puntland hambalyaanu leenahay gaar ahaan iyo guud ahaanba mid kasta hambalyihiisa halkaan u maraynaa degdeg garacad aad baan ugu faraxsanahay adeer waxa laga keenay meel fog baa laga keenay dalka iyo dadkaba waxa weeye wax badan baa loo soo dulqaadanayay wax badan baa garanaysa la soo dhisay maanta xariga baa laga jaray Soomaali weyn dhanba halkaas ku aragtay dad garanaysa waxaan arkay meelaha ay qol soo furanayo meelaha bugbuga yuusay waa u jeeday oo Urubeesiya ay saaran kuwaas waxa ma ayagu waa dad ciishaysan weeye maadaama de gabta markii dabaaldega sugunta yuusto kuwa yuusay waxaan leenahay iska xamuusada meeshaan waxa weeye codad baan leenahay niyo waxa weeye guul iyo gobonimo aanu leenahay reer Puntland ku daydaanu leenahay Puntland ku daydaada marka leeyahay Puntland ku dayo ninkii abwaanka heestaa sameey wax badan booga waayo meesha kaliya maanta wax ka iftiimayaan wadooyinka laamiga waxa weeye airborada meesha waxa ka socda adeer ummadda waa u jeedaa haddii marka la yiraahdo fan baa meesha lagu hayay baa lagu leeyahay moogto fankeed arfaanka adeer ficil buu u baahan yahay meel laskama faano nin wax le baa faana hadda drones diyaarada drones oo miiga oo dunyada lagu duqeeyo mar dhow ground ay ka soo degaan oo space la sameyn doona meesha laga sameeyo ma garan karo laakiin waa la sameynaya si toos aamina waayo wixii hore waa inaad ku waan qaadataan hadda ka hor bay dhacday inaan wax fiican la sameeyo warna ummadda reer Puntland waxaan leenahay hambalyaanu leenahay ku dayda Puntland cadawgooda ha jabo Lander dhaleen boqorkana si gaar ah u salaamaya boqorka dhalinyarada boqorka kuwa higsiiba waxaan maqlay ku dhagan boqorku waa sanaa cadaabay si kale aan cadaabay iska daa waxba tafaa ku dhagan moogtay midgay wax soo arursaday bay halkaas khalaf afwaan xaflad baan u joognaa war maanta waa islaamay anu mar walba iska tabarraacay waxaan maqoray waa ku salaamaya afayeen waayahay waa maasan tahay khalafow aad baan u maasan tahay kaga mahadcelinaa barnaamijkan qaybta aad ka ahayd iyo sidaad hambalyada iyo dabaaldega waxa weeye qayb uga ahayd waayahay kool buu galay sida caadiga hadduu uu kool galo qofka inteena kore ee kor saaran ba ismaqalla dadka hoose waa xaman karnaa nama maqlaan ma ka gaarsiinaa intuu ninkaas naga maqan yahay hormay maqashaan kuwiina kor saaranow shibanu badana garanaa waanu maqalaabi leeyi waaye waanu maxaa khaldan waayahay waanu maqalnaabi leeyihiin waayahay muudka caawo maxaa ka khaldan agaasimiyaa waa garan lahay hadda xitaa kabtanka anu yaasiin muudkiisa oo u jeedaa laakiin afhayeenka muudkiisa iyo kabtanka muudkiisaba inuusan muud ku jirin buu iisoo qorayaa waayahay waxaa samaynaysaa ninka la dhaho mideeyow kay xaraaraa lasoo qorayaa kay xaraare inuusan joogin baan rajaynayaa haddii uu joogo uwax buu soo diri lahaa ama commentigiisaan arki lahaa suldaanka sida caadiga ah waayahay abwaan dhiirane ninka la dhaho waanu soo ha kulaalin haddii uu ku jiro soo qabo ayuubow ha kulaalin amiirka soo qabo haddii uu joogo ha kulaalin waa odayaasha reer Puntland ka mid ah kuwa ugu miisaanka culus kulaale sahra ujeedaa gabar reer midiga saaran waayahay sahra soo qaba gabadhii habar gidir saacad Soomaal haday tuutaha bedelata soo qabo waa ku aqbalaynaa hoosna comment waxba iga soo saaray aad iyo aad baan idin salaamayaa shibano aad iyo aad baan kuu salaamahayaa RR inaba caadi ma raadiyahaaga waa taageera mar koowaad iyo mar labaad waxaan u hambalyeynayaa reer Puntland qaasatan madaxweynaha Puntland
waxqabadkiisa badan iyo dhammaan shicibkaba dhammaan waxaan u hambalyeynayaa gobolka mudug waxaan leeyahay guuliyo gobonimo weliba ugu horeeya islaam bashiir marka waxaan leeyahay guuleysta kudayasha mudan tihiin faankii iyo wixii isfaataan huruskii waxa weye action baad yaaquub siyaawo ku darteen taasina waa gobonimo weeye marka baraha bulshada waxaan ka arkayay waxaan reer galmudugna ahayn reer mudugna ahayn iska bilishla dadka isku dirahaya marka kor iyo hoos ba anagu waa idin taageersanahay weliba managerka dekada ee garacad waa nin cabdi ciise weeye 99% anaga reerkaas dhalnay marka waa caruurtii gubeerada weeyaan laabtaan idinka salaameynaa saas oo la socdaa martii ugu weyneed ba intaa idin tiri wixii idinka daba qayliyaana nasab ma ahan reer galmudugna ma ahan reer mudugna ma ahan haddaad aragtaan wax cuqdadaysan annaga 3 waxyaaloodba way naga dhexaysaa dagaalku waa naga dhexeeyaa waa wax iska caadiya oo soo jiraan ah gobonimadu waa naga dhexaysaa laakiin xaasidnimadu nagama dhexayso reer Puntland marka waxaa sida oo niiqla haddaad aragtaan annagu shaqo kuma lihin marka waa idin salaamayaa dhammaantiin afhayeen madaxweynahayga waa guuleystay Siciid Cabdullaahi Danina waxaan leenahay adeero qorqor baan kuu soo direynaa xoogaa shaqada ka soo bartay 2 bilood oo training soo sininku waa dhaqaaq laayahay assalaamu calaykum dhammaantiin waayahay faa'iisay aad baad u baasantahay faa'iisa laftigay waa aqaanay 2017 dadka Facebooka ka hadli jiray daaqadaha soo qabsan jirtay bay ahayd ayadoo halkaan ay ugu baratay laakiin anigu xilli hore aad iyo aad may waa garanaya halkan asxaabta RR inaa qayb ka tahay sida caadiga ah anigu halkaasaan kuu garanaya waayahay soo dhawow faa'iisay aad baad u baasantahay qof hadal cad waxa weeye reer walba Soomaaliya maalinteeda u hambaliyeysa dadka aan xaqirin qabyaalada ka fog Soomaalinimada ku weytay qabiilkeedana garabka ku wadata sida caadiga aad iyo aad hadalkeedana aad